إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا. waxaa lagu tiriyaa labada dawladood ee ugu saamaynta badan caalamka islaamka waxaana ka dhaxeeya loolan adag oo ay ugu jiraan helidda kalsoonida dawladaha kale. waxay dhaqaale iyo saanad ciidanba ku bixiyaan noqoshada awoodda koowaad ee hogaamisa dalalka islaamka ah. haddaba saanad ahaan iyo cudud ahaan yaa awood badan si xaggee kaga jiraan liiska kala saraynta awoodeed ee caalamka. kusoo dhowaada daawadayaal, muuqaalkeenna maanta waan isbarbardhig ciidan ku samayn doono Sacuudiga iyo Turkiga. tan iyo markii la uumay aadamaha waxaa soo jireen ahayd inay ku loolamaan kuna dagaalamaan sidii midba kan kale uga awood badan lahaa. waxaa isku dilay wiil iyo aabihii, walaalo iyo saaxiibo, waxaana ku kala irdhoobay kuwo isdhalay. waxay noqotay caado joogto ah in aadan uu ku hamiyo hanashada awoodeed. muuqaalkeenna maanta waxaan ku eegi doonaa laba dawladood oo ay adag tahay in la kala saaro colaadooda iyo saaxiibtinimadooda. waxay u muuqdaan kuwo saaxiibo isku dhow ah, laakiin waxaa ka dhaxeeya loolan iyo dagaal xooggan. waxay wadaagaan ganacsiyo, xog isdhaafsi iyo wada shaqayn, halka dhinaca kalena ay ka yihiin kuwo loolan adag ugu jira sidii ay u hanan lahaayeen awoodda maamul ee dunida islaamka. waxaa Sacuudiga lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee 2016 ka dhacay dalkaas, halka Sacuudiguna uu si joogto ah ugu eedeeyo Turkigu inuu garab siiyo dawladda Qatar oo dagaal xooggan uu kala dhaxeeyo Sacuudiga. waxayna ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee 2 isbuuc ka hor uu ka geystay Sacuudigu dalka Turkiga, mid dib u soo nooleysay khilaafkii soo jireenka ahaa ee u dhaxeeyay labadan dawladood. haddaba ciidan ahaan yaa leh mudnaanta koowaad? ciidamada dawladda Turkiga waxaa la aasaasay sanadkii 1920 kadib dagaalkii labaad ee adduunka, xilligaasi oo ay burburtay saldanadii Cismaaniyiinta ee saldhigeedu ahaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halka ciidamada Sacuudigana la aasaasay sanadkii 1744 xilligaasi oo Cabdicasiis Sacuud loolan ugu jiray inuu yagleelo boqortooyada Sacuudiga oo la wareegtay maamulkii dhulkii loo yaqaanay Jasiiradda Carbeed oo ay xilligaasi ka tirin jirtay boqortooyadii Cismaaniyiintu. labadan ciidan ayaa ka midaysan ujeedada loo yagleelay oo ahayd ilaalinta iyo dhowrinta xuduudaha, hantida iyo muwaadiniinta labada dawladood, iyadoo dawlad walba wixii xilligaasi ka dambeeyay xoogga saartay sidii ay u horumarin lahayd cududeeda ciidan. waxayna boqoradii iyo madaxdii isaga dambeeyay labada dal xoogga saarayeen ilaalinta iyo kobcinta cududaasi ciidan. ciidamada Sacuudiga ayaa u kala baxa 7 qaybood oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalinta xuduudaha, ciidamada cirka, dhulka iyo kuwa badda, iyo ciidamada gantaalada, iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka ah u tababaran. halka ciidamada Turkiga ay u kala baxaan ciidamada cirka, ciidamada gaarka ah, iyo ciidamada gantaalada, ridada dheer, iyo ciidamada dhulka iyo badda. dalka Turkiga waxaa lagu tiriyaa dalka 8aad ee ugu awoodda badan caalamka, sidoo kalena wuxuu kaalinta koowaad kaga jiraa kala saraynta awoodeed ee bariga dhexe, isagoona ah awoodda labaad ee isbahaysiga NATO marka laga yimaado dalka Mareykanka. Sacuudiga ayaa isna kaga jira liiska kala saraynta ciidan booska 23aad, isagoo sidoo kale ah dalka saddexaad ee ugu awoodda badan bariga dhexe. tirada ciidan ee dalka Turkiga waxaa lagu qiyaasaa 410,500 oo askari. ciidamada keedka ahna waxaa lagu qiyaasaa 185,630 askari. sidoo kalena dadka gaaray heerka ka mid noqoshada ciidan ee loo tababaro ka mid noqoshada ciidanka xilliga loo baahdo ayaa ah 41,640,000 oo qof, waxaana sanad walba gaara da'da askariinta ee loo tababaro inay ka mid noqdaan ciidanka 1,375,000 oo qof. waxaana qofku marka uu gaaro 22 sano ku waajibta inuu tababar ciidan aado si uu ugu diyaar garoobo ka mid noqoshada ciidanka xaaladaha degdega ah. Sacuudiga ayaa isna lagu qiyaasaa tiradiisa ciidan 440,000 oo askari, waxaana ciidamadiisa ka howlgala dalka dibadiisa lagu qiyaasaa 11,000 oo askari.
oo isugu jira kuwo howlgallo dagaal u jooga dalal ay Yemen ka mid tahay. Sacuudiga ayaa sanad walba miisaaniyadiisa ciidan dhan tahay $76.7 bilyan oo dollar, halka miisaaniyadda ciidan ee Turkigana ay dhan tahay $8 bilyan oo dollar. ciidanka Turkiga ayaa tan iyo markii dhidibada loo taagay galay dagaalo badan, iyadoo ay ka mid yihiin dagaalkii xornimada oo ay galeen dagaalkii labaad ee adduunka, kadib sanadkii 1922 dagaalkii Kuuriya ee u dhexeeyay labada Kuuriya, iyadoo ciidamada Turkiga ay dagaalkaasi uga dhinteen 730 askari. Sidoo kale Turkiga ayaa qayb ka ahaa dagaalo lagu qaaday Qubrus iyo Afghanistan, wuxuuna dagaal adag kula jiraa ciidanka Turkigu ilaa hadda xisbiga Kurdiga oo raba inay samaystaan dowlad ka madax bannaan dalka Turkiga. Sacuudiga ayaa isna tan iyo markii la aasaasay ka qayb galay dagaalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dagaalkii dhidibada lagu taagay boqortooyadii reer Sacuud, dagaalkii 1934 dhex maray Sacuudiga iyo Yemen, dagaalkii Wadiica, iyo dagaal uu la galay Yahuudda sanadkii 1948, wuxuuna qayb ka ahaa dagaalkii sokeeye ee Lubnaan, dagaalkii labaad ee Khaliijka, iyo dagaalkii Oktoobar 1973, wuxuuna xubin ka ahaa isbahaysigii ciidan ee Soomaaliya yimi ee uu horkacayay Maraykanku bilowga dagaalada sokeeye, isagoo hadda hogaaminaya dagaalka loogu magac daray Caasifatul Xasm ee ka socda dalka Yemen. Isku soo duuduuba, dalka Turkiga ayaa noqonaya dalka koowaad ee ugu awoodda badan caalamka Islaamka, ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan, isagoo leh awood ciidan iyo saanad oo ka badan tan ay leedahay Sacuudigu, sidoo kalena ah dal la soo baxa hubkiisa ku dhowaad 70%, halka Sacuudigu yahay dal hub ahaan ku tiirsan Maraykanka oo ay sanad walba hub balaayiin ku kacaya ka soo iibsadaan. siyaasad ahaan waxaa maragma doonto ah in Turkigu uu muddooyinkii dambe siyaasad saameyn leh ku yeelanayay dalalka dhaca bariga dhexe iyo Afrika, isagoo ka duulaya istaraatiijiyad ah aan wada faa'iidno, ayuu gacan qabtay dalal badan oo Afrika iyo Aasiya dhaca, isagoo sidoo kalena eeganayay dhaxalkii ay ka tageen saldanadii Cismaaniyiintu oo qarniyo badan maamuleysay dalalka Islaamka. Timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kaanlar, Panterler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, kılıçlar, çelikler, fatihler, boralar, efeler, şahinler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kaanlar, Panterler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, kılıçlar, çelikler, fatihler, boralar, efeler, şahinler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kaanlar, Panterler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, kılıçlar, çelikler, fatihler, boralar, efeler, şahinler, bir ölürler ama bindirilirler. Jandarma, özel harekat timler, Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kaanlar, Panterler, bir ölürler ama bindirilirler.